taageerayaasha xisbiga mucaaradka wadani gaar ahaan kuwa musharaxa golaha deegaanka degmada Gabiley Mujaahid Maxamed Abdeeq Cumar ayaa isu soo baxyo ballaaran ka sameeyay degmada Allaybad ee gobolka Gabiley iyo deegaamo badan oo hoos yimaada isu soo baxyadan kambeynka siyaasadeed ee doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiilada oo maanta u lahaa dalka oo dhan xisbiga mucaaradka wadani ayaa taageerayaal kumanaan qof ah waxay isugu soo baxeen xafiisyada musharax Maxamed Abdeeq u leeyahay degmada Allaybad iyo deegaamo hoos yimaada gobolkaasi iyagoo markii dambena iskugu soo biyashubtay xafiiska weyn ee degmada Allaybad halkaasi oo dadweynaha kala hadleen siyaasiyiin cuqaal dhalinyaro haween iyo waxgarad kale ugu horeyn dadkii iskugu soo baxay fagaaraha khayriyada Allaybad ayaa waxa halkaasi kala hadlay haween dhalinyaro iyo odayaal ka tirsan deegaanka oo ku hadlay afka musharaxa maalinta farta la saarayo sidaas oo kale aan isugu nimaadno mujaahidkeennahan ha guulaysto mujaahid maxamed ha guulaysto محمد مريا أبو زيوك جلاتها واديقال أمني كنتني كبيرة هاتري قال حرير ولا هذا الجواب تسيرها بعد شيء ولا يتابع وكان ينادي أنا من الدعاء قوم كان يستأجر هذا كله إلى الجنة وكذا عبدك شيء كريم حقوية من كذي كانوا ملاك تكون سوق تكون كويسة إلى هاي تدرسين سؤال كم نوعية كذا بدرسين جنة هذه المجيء كل ليش صادق يبقى لو نقول محمد الله مجاهد في قيدين كورة بمايو وعنان عدسينا وانقارنا وحد الله يحي محمد الله دم الحلوين ثاني يقارطون بشيء وشدوها موقبتا يروداده الله نظاريو تدخل ويدونيا أنا روان دارنا عدكي سنوا ديار aynu helno maxamed abde walaalayaal waxa uu ku naafooday oo uu ku maxweeyay maanta ay rasaastii lugihiisa ay ugu jirtaa waa sidii aynu xorriyad aynu ugu noolaan lahayn waxaan rajaynayaa mujaahid maxamed abdeeq oo maalmo kadib maayarka degmada Gabiley u tartamaya inuu waxa weeyaa markaasi aynu la garab istaagi doono isagoo maayarana uu inoo iman doono suu dareenka dadkiisa uga qayb gabagabadii waxa halkaasi ka hadlay musharax Maxamed Abdeeq oo taageerayaasha uga mahad celiyay isu soo baxyada ballaaran ay sameeyeen sidoo kalena waxa uu fariinhaan ugu diray inay maalinta doorashada codkooda ku hubsadaan musharax Maxamed Abdeeq jira waqtigii gabagabada ee kaabeykii aan soo wada galnay ee doorashooyinkii ololaha waqtigii la codeynayna waxay naga xigaa wax yar markaa taageerayaasha yaa la hor fadhiya codkaygii waxaan idin leeyahay maalmo yar baa inoo hadhay cod kale isiiya intaa iyo xamila abaalkiinana waa gudi doonaa ilaahay idankii haddii alla yidhaahdo rajadaannu qabnaa waxa weeyaan inaan codkiina ku soo bixi doono waxyaalaha igu kalifay waxaa ka mid ah inaan sharaxo deegaanka ka barwaaqo ama Allaybad aan isku sharaxo maalin walba iyadoo dadkaygii hoos u ooyayaan mararka wallaahi oo bilaahi walxamdulillaah war maxaa idin helay magaaladana waxba loogu filayn oo maxaa idinka khaldan oo waxaan idin meeshan soo ogaatiyo
kolkaa inay khaldan yihiin iyo inay wax ka khaldan yihiin iyaga bal soo ogaata xuquuqdoodii ku maqan tahay markaa dadka gobolka gabiley deegaanka gabiley aan wada degannahay waxaan doonaynaa inay qori isku dhiiba noqoto oo ayna noqonin aniguba ku fadhiyayo kursiga oo kursiga maayarku aanu noqonin kursi nin leeyahay taasaa loo baahan yahay gabiley looga leeyahay baynu u baahannahay oo xilka ninka kor fuulo markaa insha allah waxaan idiin rajaynayaa guul iyo waxayno aad leedihiin oodaan cabasho dambe aanan idinka maqal